14 bukaan oo qaba dhaawacyo kala duwan kuna waxyeeloobay qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa maanta laga ambabixiyay magaalada Muqdisho waxaana lagu wadaa in la geeyo dalka Sacuudi Carabiya si xaaladooda caafimaad wax looga qabto. Guddi uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in tirakoob iyo qiimeyn ay ku sameeyaan dhaawacyada kala duwan ee ku jira isbitaalada ayaa soo xulay 14 ruux oo isbitaallo kala duwan oo 3 gaaraya laga keenay. Dr. Maxamed Yuusuf agaasimaha isbitaalka Madiina xubinna ka ah guddiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo magacaabay in qiimeyn ay ku sameeyaan sida ay u kala liitaan xaaladda caafimaad ee dadka ku dhaawacmay qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sharaxaya tirada la qaadayo iyo qaababka lagu xushay. Isbitaalka Madiina waxa ila joogo guddi oo laga soo magacaabay ra'iisul wasaaraha in aan soo wada xulno bukaanno oo markii aan baaritaano ku suubinay oo aan aragnay kulligooda say u badan yihiin horta waa qarax iyo xabad aana dalka lagu daaweyn karin. nasiib dadkii waa soo aruurinay mudday isbitaalka jiifeen maanta waa la qaadaa waxaa loo qaadayaa dowladda dalka Sacuudi Carabiya loo qaadayaa waa la soo daaweynaa. arrintaasito waxa waaye arrin oo aan ku faraxsanahay. tirada maanta la qaadayo waxa waaye 14 qof waaye. dumar oo dhan waxaa ku jirto hal gabar hal islaam baa ku jirto oo dhaawac xun madaxa ka gaaray inta kale waa rag. dhanka kale qaar ka mid ah dadka loo qaadaya Sacuudiga ee xaaladooda caafimaad wax looga qaban doono ayaa la hadlay goobjoog iyagoo cabiraya dareenkooda ku aadan fursadan ay u heleen in dibadda wax looga qabto xaaladooda caafimaad. Waa Sacadaan Maxamuud. waxaan maanta halkan u nimiday danaha shacabka Soomaaliyeed dhibaatadina gaartay in dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo khayr Allah siiyay ay daryeel caafimaad noo fidis. waa ku mahadsan yihiin. waxaan leenahay Farmaajo madaxweynaha dalka waa hogaamiyihii ummadda asaga iyo ra'iisul wasaare khayr halganka iyo daryeelka iyo dadnimada ay nala garab istaageen oo nagu caawiyeen waa ku mahadsan yihiin waana soo dhaweeyeen. waxaa la yiraahdaa maxaa Cabdullaahi Ismaan waa la yiraahdaa waxaan ku soo dhaawacmay qaraxii kaawguday u horeeyay oo maalintii la doortay madaxweynaha Farmaajo u horeeyay. waxaan ka mid ahay qaraxii isku soo booqday isbitaal Madiina oo ka ballan qaaday in caawin nolol fidan doono. marka caawanadii intaas bilowdan sugayna alxamdulillah ilaahay uu maanta uu soo saqiray in nala qaado. marka dawladayna oo noo gargaar weyn noo fidisay iyo dawladda kale oo asxaan noo samaysay in ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu ka abaalmariyo. intii Soomaaliyeed oo aydan gargaarkan oo gacan weyn ka geysteen waxaan leenahay ilaahay sama Allah gaarsiiyo. marka laga tago tiradan dhaawacyada qaba ee loo qaadayo dalka Sacuudi Carabiya si loogu soo dabiibo xaaladooda caafimaad waxa kale oo jira dad badan oo Soomaaliyeed oo iyaguna ku soo waxyeeloobay qaraxyo kala duwan oo caasimadda iyo gobolada ka dhacay dawladda ayana gargaar ka sugayaan. Cali Aadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.